Assalaamu calaykum. Dadka badankoodu waxa ay ku bilaabaan maalintooda cabitaanka shaaha iyo kafayga, balse waxaa cilmi baarisyo caafimaad oo aad u badan muujiyeen in qofka subaxa hore caba liin macaan qasan in caafimaadkiisu aad u fiicnaanayo. Sidaa darteed waxaan daawadayaasheeda qiimaha badan u soo bandhigaynaa maanta faa'iidooyinka iyo waxtarka iyo nafaqooyinka caafimaad ee Alle ku abuuray liin macaanta. Haddaba ku soo dhawaada mowduuceena oo maanta ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee liin macaanta. ugu horeyn daawadayaal, liin macaanta waxay taageertaa in habdhiska difaaca cudurradu uu si fiican u shaqeeyo, waayo liin macaanta waxaa ku badan fitamiin C kaasoo caan ku ah inuu jidhka ka caawiyo in habdhiska difaaca cudurrada ama habdhiska difaaca jidhku uu noqdo mid si fiican u shaqaynaya, kaasoo difaac fiican u yeesha inuu ka hortago khataraha ka iman kara ama ku iman kara habdhiska neefsiga ama dhuumaha neefmareenka. Waxaa kaloo liin macaanta ku jirta maaddo la yidhaahdo ascorbic acid, taasoo la mid ah fitamiin C-ga kana difaacdo qofka inuu caabuq jidhkiisa ku dhasho. Sidoo kalena maadada loo yaqaano sabanan oo sidoo kale laga helo liin macaanta laf ahaanteeda waxay ka hortagtaa walxaha cudurrada wada ee jidhka dibadda ka soo galaya, taasoo qofka sida joogtada liin macaanta u qasta aanu qaadi karin cudurrada ama xanuunada ay ka midka yihiin durayga iyo hargabka. Dhinaca kalena maadada aynu ka soo hadalnay ee loo yaqaano ascorbic acid ee liin macaanta ku jirta waxaa ku badan macdanta ironta, taasoo ka qayb qaadanaysa in habdhiska difaaca jidhku uu si fiican u shaqeeyo. Dhinaca kalena daawadayaal, liin macaantu waxay caawisaa habdhiska dheefshiidka, waayo liin macaanta waxaa ku jirta maado loo yaqaano citrus flavonoid, waana ta ka mas-uulka in habdhiska dheefshiidku uu si fiican u shaqeeyo, waxayna nadiifisaa kana shaqaysiisaa beerka. Haddaba liin macaanta qasan inta badan waxaa lagu yaqaanaa in habdhiska dheefshiidka ay si fiican u caawiso si dheefshiidka calooshu uu si fiican wax u ridqo. Haddaba fitamiin C-ga oo sidoo kale ku jira liin macaanta waxa uu ka hortagaa in qofku yeesho boog calooleed sababta in gaastari qofku qaado ama bakteeriyada loo yaqaano Helicobacter pylori oo aakhirka qofka boog ku keenta. Sidoo kale daawade, liin macaantu waxay nadiifisaa maqaarka, waayo fitamiin C-ga ku jira liin macaanta ama walxaha kale ee loo yaqaano antioxidant ee laga helo liin macaanta waxay maqaarka ka ilaaliyaan in dhaawac soo gaadho ama hambaboqo maqaarku. Dhaawacyada qaarkoodna waxa ay ka iman karaan deegaanka oo ay ka jirto dikhow, taasoo ay sababto hawadu, gaar ahaan kuwa keena in maqaarku islaalaabo ama codcodho ayay liin macaantu ka hortagtaa. Haddaba liin macaanta oo afka laga qaataa waxay yaraysaa dhaawaca maqaarka soo gaadha ee keena laablaabka ama finanka tirada badan ee qofka maqaarkiisa ka soo baxa, waxaana dhiigga ka saartaa sunta cuntooyinka qaarkood ay sababaan. Dhinaca kalena daawadayaal, liin macaantu waxa ay jidhka ka barxisaa aysiidha. Haddaba inkastoo liin macaantu ay u muuqato mid aysiidhu ku badan tahay, haddana xaqiiqadu waxay tahay inay ka mid tahay cunooyinka ugu wanaagsan ee jidhka ka barxiya aysiidha, sababtoo ah liin macaantu waxay ka kooban tahay ascorbic iyo citric acid, kuwaas oo ah qaar daciifa oo macdanta liinta ku jirta u oggolaanaya inay jidhka ka barxiso aysiidha riban islamarkaana ay ka yarayso. Geesta kalena daawade, liin macaantu waxay ka qayb qaadataa in jidhka qofka nabraha soo gaadha inay hore u bogsadaan, waayo aysiidha la yidhaahdo ascorbic acid ee loo yaqaana fitamiin C oo laga helo liin macaanta waxay ka qayb qaadataa in dhaawaca jidhka qofka soo gaadha uu hore u bogsado, waxaana ka mid a nafaqooyinka u muhiim ah bogsashada nudaha, lafaha iyo weliba carjawaha jidhka. Fitamiin C-guna waa shayga ka hortaga caabuqa, kaasoo daawo u ah sidoo kale in qofka maskaxdiisu ay culays dareento. Dhinaca kalena daawade, faa'iidooyinka kale ee liin macaanta ama oranjada waxaa ka mid ah waxay daawo ka tahay fuuqbaxa, waayo qof kasta oo subax kasta caba ama qasta liin macaanta waxay ka caawisaa
in habdhiska dheefshiidkiisu uu si fiican u shaqeeyo. Jidhkana waxay ka saartaa walxaha qashinka ama sunta ah ee ka hadha jidhka intuu ku guda jiro burburinta cuntada, waxaanay soo celisaa dhammaan fuuqbixii qofka ka baxay. Sidoo kale daawade, liin macaantu waxay hoos u dhigtaa miisaanka. Taasi waa sida ay aaminsan yihiin khubarada ku takhasusay nafaqada liinta, waayo waxay si dardar ah u ridaa miisaanka. Sidoo kale waxay jidhka ka nadiifisaa sunta iyo qashinka gudaha kaga jira. Ugu dambeyntii, liin macaantu waa tamar aad u wanaagsan, waayo liin macaanta qasan waxay jidhka siisaa tamar uu si fiican ugu shaqeeyo, taasoo ka ilaalisa inuu qofku intuu hawlaha culus ku jiro inuu murugoodo ama culays maskaxda ah dareemo, sababtoo ah waxay dejisaa habdhiska neerfisyada ee fariimaha ka soo qaada oo geeya maskaxda.